السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أيان لول أصحاب تجنل كي وكحنا سوري دواذا عاو مرتعلو سايل جوكتو وحايل جوويل كي محمد ولاشي ورسن شيق إن شاء الله إلي سودوي أصحاب تادو إلهي راهدو محمد وسودو وابرين آديات بانو هاي waxaan soo dhaweynayaa warsan sheekh sidoo kale asxaabta aad baan soo dhaweynayaa kastamar baa ka ah meesha sidoo kale habreero maartay ayaan luula aad baad mahadsan tahay barnaamijka aad marti qaaday runtii waxaan aad uga helaa waxyaalaha wacyigelinta ah oo dhalinyarada aad samayso qoysaska aad ka hadashay faamilada sidoo kale daawaadka iyo cunto dhaqameedka aad samayso barnaamijyada soo dhigto waxaan aad uga helaa mid kale barnaamij aad kaga bedelan tahay inta badan dadka wadanka jooga oo xilli hore yimid dhalinyarada ku cusub waxoogaa wadanka ay yara riixa garbin baa waxoogaa lagu yar sameeyaa adigu waad soo dhaweysaayo runtii waxaan jeceshahay inaad maaragtay la xidhiidho aad soo dhaweyso oo maaragtay dee magacii hadda maaragtay gal kanadi lagu yeedho dadka waxoogaa wadanka ku cusub adigu waad ka bedelan tahay marka aad iyo aad baad arrintaan maaragtay ugu mahadsan tahay thank you baan أصحابنا سؤال واحد إن شاء الله. ما شاء الله محمد سؤال يا رب حوري إنهم كويديو قرما قد أهم ودن كندا قرماتين. كندا وحنا إيميد لابد يكون يلا بيت وانكي بشي سجارات صدقي توانكي دي حلقة صعبة فريدة تيم بانها. ترى ما كسب بلاد. وحنا كسر ضعفي يعني ودنك كينيا gaar نيروبي تورنتو ترانس بانكو أها waxaan hadana tagay Manitoba Winnipeg kabacdi hadana waxaan diga rogtay Alberta hadana waa Ontario Toronto marka waxaad isleedahay Soomaaliya wali geedigi baa lagu jiraa ma nandagin kuwa si Soomaaliya wali ku jiraysa laakiin Allah raxmaanka ay noo dajiyo insha Allah su'aashayda labaad u galeena inta aqrabaa joogto maxaa kuugu yaabka badnaa aad muhiim ah intaan wadanka joogay waxaa ila yaabadnaa xilligaan imid baa teatalka adeerta eedada ammaan bay ka hayd iyo abtidu dhulkii aynu joognay ee ku dhalanay Soomaalidu ay deganayd ruuxa uu ka weyn yahay ku xurmayn jiray sax xishmay ahayd marka xilligaas markaan wadanka imid waa 8 sano hadda laga joogaa xilligaas yaa waxaan jeclaa ruux kastoo iga weyn inaan ku xurmeeyo ka iga yaraa saas leeyahay anigu isaga dhigo waalidnoodii aan qaato oo aadtii adeer ku dhaho ka iga weyna aan ku dhaho marka islaaman arkaya maartay waa weyn oo kaas waxaan leeyahay habar yar ama eedo markaasay ku xanaaqayaan maanu leeyahay eedo maanu ajuusiyo marka waad yaabaysaa marka adiga baa naxaya marka qofkii ilaa laga naxsanayo maalinka dambe wiilku warnay dhibaataysa jirtay marka waran wuxuu yiri war ma haysid ba islaam baa wuxuu yiri dabcan inaan caawiyo alaab wadata waxaan yiri eedda ma kula qaadaa sax saanta wuxuu yiri bug maanu leeyahay sidee eedda yidhi kartaa oo ila dagaashay caawintii eedda yiri marka dadku daadii way ka dagaalamay dad ka artayna waa ka hadlaaba siiba dumarka aaran leenta waxa dhibka noqdaa waxay ahayd daada oo la dafirayo waxaad arkaysaa oday waa saas leeg oday weyn baad leedahay adeero markaas waxa oo hadamada dhib lagu adeerku karostari dhikar baa ku kacay oday marka waa inaad tiraahdo bro oday ku tiraahdo aad maartay my friend tiraahdo odaynimadiisa la sheegay walaal oday 80 jira ama 70 jira marka waa dhibaatooyinka aan aragnay moogta mid ka arkaysaa gabadh 80 jira hooyada 80 jira tahay wax kale weyn kala ila badan ma soo koobmayso gabadh baad baranaysaa markaas ku leedahay waxa la yiraahdaa xalimo maalinka dambe markaas xalimo koo maqaysaba hay'amo ba haba xalimadi ma hamiya wad eegaysaa mid wallahi waa xalimad waxaad leedahay walaal meel xalimo alla waa magaca wadanka ku joogay waa magaca sulay khaliga hada ama sabsan bay ku leedahay magac kale magac horbeen dadkuna magacii kuma joogo taasna waa dhibaatooyinka aan wadanka ku aragnay oo la yaabka sidaasaan ka odhan ma sha Allah haye waxaan kaloo weydiinaa waa gabaydaa la yiri gabayadaadii aan rabnaa insha Allah iyagana inaan wadanka markaad timid dhibaatooyinkaas kolay gabayaa ka samaysa waan ka sameeyay ani adiga maanta iskugu markay horeyso gabayadii aad ka samaysaan rabnaa inta caawina la wadaagto insha Allah hadduu ilaahay yira runtii waan ka hadlaa marxaladaha wadanka waxyaalo badan baan ku matalaa marka gabay la yiraahdo gabay jiib
baan hadda soo qaadanayaa ay gabaygaas inaan sameeyo waxaa sababay markii aaladda facebooka runtii hablihii Soomaaliyeed ama social media baan lagu yaacay oo yiraahdeen waxaan rabnaa ama aan tilmaamaynaa dookhanaga iyo siduu u yahay gabdho dheheen waa inuu nin sidaa u yahay oo biraqaad qaaday oo jiib qaaday oo salaad adag leh ya ay dheheen sax marka ragii baa ku yaacay odayaashii baa xataa aaday qaar baa ku jajabay injiri ka soo gaadhay waxaad arkaysaa nintaa ay warma shaqa dhibaata kaa soo gaadhay armaylo jiib muxuu halkan aaday xalimada ay dirtay war xalimada jiibka dadka u wada dirtay maxay ahayd ragii marka waxay yidhaahdeen waa faarax ninka iska caadiga gebigiis waa faarax oo nin aan yacnaa jiim aadin waxba aadina murqa lahayn oo kuuskuusnayn oo ninkaas wuu ficilay kuwaas ka faarax bay ku leeyihiin hadda faarax waa magace xalimadii laftigeeda xalimadii waa magace faaraxi waa magace maxay u haleeyeen waxa loo halaynayaa waxay tahay waa caadiga kuwaas marka waxaa loo baahan yahay dad aan caadi ahayn bay ku leeyihiin marka caadinimadii waa laga cararayaaba yaa laga muuqata mogtahay markaas dagaalka ka bacdi internetka ka dhacay baan gabaygan tiriyay gabayjiin yiraahdo waxaan ku bilaabanayaa sidan waxaan jeclahay hadii gooraan siiqadii hore soo qaato dadkii hore waxaan ku yirmataa dadkii hore sax marka waxaan leeyahay hoyaaye 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 hoy allaye hoyaaye hoyaaye hoye hoyaaye 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 hoye dhalinyarada jimka gashe wada goclays ee garan yarso wada xidhiyo jemis wada gab xaajada garan looy igu gulalatay abshir baa gadii sheegayo waan garwaaqsaday gabdhaa keena wiilasha goya muruqood goglahay ka badhaan midkeesiga isku baglowa garh madoobada iyo barbaar gaadhay madashi odayaal gaboobaba geli gashkan dabadii garba jaleexadii atoon gigmin hilibka sawirkaad gasheed goobii gelisa facebook inan laygta sartaa ma jirood ku gamaday singal mother daydaya gabdhaa kama gadmaysaan isdaalkii gaboobiyo la dhafgela socodkii dhisaynega soo baxay la soco adduun gelinba wacayni waa inaad dharkugu gaadhama gigsan xidhatay waa inaad sidii goomihii wada gufnatay waa inaad tallaabada gurtood yara guclaysay oh my god su-aal baan halkaa geliyay mandhowe gala kanada weeyaan ragguu gabaygu saamayni gaar ahaan ontaria inagii eega soo galay gaar ahaan ontaria gaar ahaan ontaria inagii eegan soo galay ingiriishka weedha ku jira dumar ku gooban hani baybi goortii walbaba geli su-aasha markii aad shukaansani ka eg hadal la gulgul ma gartaane mahmahda iyo erarta guudsan ha ku odhanaya ha ku odhanina ayaadu waa godobsigoodii haddii kale sidii geydhu hadal waad ku gubataay gayi dhulaanon geedii iyo gelashaamani godir iyo bicid yaanon goray ka faalon gabay jiib ma sheegiyo tixdaala dawgaaraan ha yeeshee midh baan goconaya gubi jidhka igiihe gabadhan jalad iyo midaan dumarka goobaayay telefoonkii gacanta iga lumay goor daraataaye tangiyo wasaab iyo ma jiro golo farimeed internetka goortii la helay gaadhnay samayne khadka soo galgacabay adaanku golleeyaay ciwaankii ka guurtaye maxaan kugu gartayga sawirkaagii goorahan maarag ganacsigiisii gabdhaha ismaaciiladiyo farax gaasiray ha yeeshee gadaasay naftii hola cugeeye birga muran bay laba gamcood gudub u haystaan gaboob iyo raggii guurtidan goynin xaajada
caqliga gababsiyey markay garan yar qaate gacalow ka joog jiimka waa lagu gawaamaaye gacalow ka joog jiimka waa lagu gawaamaaye maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah waxaasa guddoonsi gabarna waa in la siiyo gabarna waa maxamed gabay uu naga tiri waa gabarna in la siiyo aad maasha allah tabaaraka allah anigu horta gabayo aan ka helo oo maxamed uu qaado way jirtaa runtii oon aniga oo Alberta asagoo joogo aan ku arkay aad baan u jeclaan lahaa horta inaan gabaygaas weydiiyo laakiin horta su'aalaheennii aan kusii soconaynaa insha allah maasha allah tabaaraka allah Alberta markaa timi maxamed oo habar yar dhaqankii aad ugu timi Alberta maanta Ontario loo meel kale yihiin magaalo ahaan haddii la dhahana meesha dadka u roon ama u fiican waa garan kartaa Albertana dhaqan gooni ah oo xoogaa mugdi ku yiri jiray iska leedahay halkana waxay leedahay dhaqan gooni ah laakiin Soomaalidu ay aad u jeceshahay dadkuna ay aad isu jecel yihiin runtii soo dhaweey badan oo qofka ka helayo ma isleedahay markaad xagga ka soo tagto maanta Ontario timi gabayadaadii intaa iyo in ka badan baad sii tirin doontaa waa kasii badnaan doonaa horta waxaan ku horeynayaa kala duwanaanshaha Alberta ama Edmonton iyo Ontario ama Toronto horta waxaan oran karaa waa afgooyi Muqdisho kala yihiin sax ama Tulugulad iyo Jigjiga macna ahaan صح طبعا dadku way sarfanayaan intaas aad magaaladan hadda aan joogno oo Toronto ama Toronto waa magaalo runtii special ah waa magaalo runtii aad iyo aad aan uga helay sida ay familiyada ugu nool yihiin sida dhalinta iyo dadku ay macquulku ay runtii noloshooda ay tahay صح waa meel aad mid waxoogaa in lagu yirnagaanayo oo sida Alberta oo kale dadku waa yar geedi waa laabka geedi marka nolosha qurbuhuna runtii dhan waa ka qaraad dhanna waa ka macaan hadda ka hor baa gabay baan ku sheegay aan leeyahay waa kun la yaab iyo kow farxada marka qolyihii hore ee ka iman jiray qurbaha kawada bay noo sheegi jireen kunka way naga qariyeen marka sugaanta had iyo goor waan ku cabraa maxaana keenayaa marxaladahan aan ku noolahay ee kaa hor muuqanaya marka taasaan runtii sugaantuna ay had iyo goor ka talaabo qaadaan marka marxaladda taagan bay sugaanta ka hadashaa sideeda banaanba qofka isagu iskama hadla ee dadku u hadlaa qofka markuu abwaan yahay dadku u hadlaa waa indhaha bulshada waxaan uu curinaya naftiisa kama curinaya laakiin wuxuu ka tirinayaa bulshada wuxuu ku arko bulshaduna waxay qaadanaysaa wixii abwaanka afkiisa ka soo horta qodobka abwaanka iyo cudurdaaranayaa anoo markaan joogay wadankii kale ama aan joogi lahaa anoo kale abgaan lama dhaheen afriilaan wax u yar tirtiriyaa baa la odhan lahaa laakiin meel kasta oo joogto waxaa tahay baad runtii haddana bulshada aad kula jaan qaadaysaa maadaama af Soomaaligiiba uu dhintay oo lagu hayo maartay sagaal lagu hayo anigu abwaan aan noqdo marka kii af Soomaaliga sax ku hadlay waa abwaan kii inay saarsaarina ayo waaba qariyeen kaasi marka hadda maadaama wax siyaasad saaray marka ma diidaya laakiin markii hore waan ku cusbaa markii abwaan la yiraahdo waan qajiri jiray runtii hadda laakiin waan iska qaadanaya sababtoo Soomaaliga dara lagu haya kaas qofka markuu abwaannimada ma aha horta waxaad ciyaar lagu helo waa hibe ilaahay uu qofka bini aadamka siiyo waana maxaan ku rahdaa israacna wuu jiraa ama dhan hooyo ha ahaato oo dhanka reebtiga ha kaaga yimaado ama dhanka reebaha ha kaaga yimaado maawiyada ha gabiyaan meel unbuu kaaga soo dexayaan oo kaaga imaanaya gabaygan marka maxamedow ma reerkii baad ka dhaxashay oo waa gabay dhaxal ahaan kugu soo gaaray oo xagga hooyo xagga aababa gabayga waxaa la odhan karaa afar goor baan dhaxlay maasha allah tabaaraka mar dhul ahaan baan u dhaxlay oo dhulkii gabaygaad ka timi waa sax mar dad ahaan baan u dhaxlay Soomaali baan ahay sax maasha allah labada kale mar familka xagga aabaha mar xagga hooyada baan ka kala dhaxlay labada dhinac labada dhanba marka labada dhinacba marka hadda aabaha oo kale gabay uu tirinayay in yar oo ka xusuusta tuduc marka Toronto ka mid ah meel uu soo qaatay xilliga anigu Toronto meel ay ahayd ma garanayo in xaafadda iskana tahay in meel kala tahay runtii tiibaan ka degay oo aad ku noolahay moogtay marka waxa ka mid ah gabaygiisa wiil dhalay oo kale ilaahleeyo markaas wuxuu lahaa asada uu tolkeen baa lahaa waa u tagaysaa
toban wada madoobaatooda tuugahay helay anigii tagaabada rabay bay wada tabceeyeena tima case iyo intay tima haween talada noo goynaa alla wayta laay siday taladu noo seegtay tacliimaha intii ay dhigtaan teeb ma wuxuu yidhi torontiya tonaha intay degaan tulid ma beeraanee torontiya intay yurub tagaan teeb ma qoriyaan balogow xilligaa anugu yurub shaqo kuma lahayn marka waan yaraa meel ay yihiin ma garanayndi صح waxay marka lahayn idan taagana tuulooyin kaloo meelahan iyo ma garanayn anigu deriska mudaya marka dhaxal baa marka iyo dhinacaas ka ahay baa la odhan karaa maxamed wuxuu u ahaa gabayga dhaxal isaga oo runtii dhanka aabiyo dhanka raabtiba kasoo dhaxlay haddana soomaali u ah haddana ka yimi dhulkii gabayga laga soo gaaray ama kasoo aas-aasmay ama uu kasoo abuurmay ama uu kasoo baxay intaa waxaan ku ekeynaynaa waraysiga gabayga ahaa maxamed iyo gabaygiisii salaamu ullaahi calaykum